وحكروا النبي عليه الصلاة والسلام لعنة سوكما دعين أنت أنت أدمودي إنه وكسي ويه دمجه درهم وريبا هل كشلين هل كرون أو رباع يأكله الرجل قفه عنه وهو يعلم يسوق في بينه أشد عند الله من 36 زنية صدني اللحجة القفص دين يستوحى كدم بوين هل كرون رباع سوق ينوشي يقفك عنه هل كرون رباع أنا قبله ما بحاجة عليه الصلاة والسلام حديث كاسي هو حديث كي لقوريي عبد الله بن حنظلة إمام أحمد غير كي وريان شيخ ناصر النواصي يقول غاية المرام بقول الله بعطني التضبح حديث رقم كثير إنك رواون نقول كرا درهم وريبا هل شلن أو ربا أو عنتي يأكله الرجل منك وعنيه وهو يعلم واشر دين أسوء إنه ربايه أشد عند الله من 36 زنية صدا إيا اللحمر أدزني ستي وحكدم بوين هل كران أو ربا أو عنتي أكتب قدرين الكرتان waxaa nabigu uu leeyahay ishtani والسبع الموبقات واقل الربا ugu daray inay ku halaagaysa halkii ku gaarsiinaysa garan kartaa markaasuu nabigu عليه السلام wuxuu الربا 73 baaban ribadu 73 baab way in la badiyaa looga jeedaa leeyahay culimadu laakiin tiradaas oo go'an ma kan ugu fudud muxuu yahay aysaruhu kan ugu fududi mislu an yankiha الرجل umma nin hooyadii u tago ka zinaystay baa ugu fudud درهم كالربا كلا العنى يسعب كسي الدنبي وين من هو يدي حراح حقا دونتي مركاسا وحال الربا انت الربا الله سوء ولا وسو قرعه ولا وسو قديه ولا وسو عشايو غاريغيدين الله سو راع غريغيدين الله سيخدو ان الهو نغا اقبل دعاء ليراد maalintii walbaba waxaad soo gashaa dambi ka weyn dambiyada kale lagu tirinin keenaha ku gashay kiyaafkaaga ku gashay dambiyada kale lagu tirin iyada kaligeed baad maalin la arkaba 36 sano ka badan ku samaysaa dambi ka weyn kaasada waxaa rabtaa marka inaad darajaad ulula gaarto markaas intuu ku yimaado wuxuu leeyahay muslimiinta dhiig muslimiinta la daadinay ma la dhinto hebel iyo hebel maxay wadaadada maxay muslimiin ku leeyahay adina hadasho ma adina hadasho maalin kasta lagu hubo inaad samaynayso 36 sano ka badan maxaad dadka u haystaa xogo sheeg adiga malcuunka gaagi bariye gabalkee dhacay dadka muslimiinta oo haysata waxba ma aynan ka hadlin laakiin waxa laga yaabaa xaraam iyo dambi inay ka fogaadeen oo ilaahay dad mukhlisiin oo yihiin dad buu haystaa marka ma arkaba markaas waxaan joognaa xilli dambiga inta leegi taqsi ka hormari kaba duwana waxayna sameeyay laba ninka sidaas sameeyay ee soo galay dambiga ah lacanadu ku socoto ee dagaal ilaahay kula jira ee 36 sano ka badan halka shilin oo cunaba ay ku joogto ninka sidaas inuu wax sameeyay lama kii qori jabiyay iyo kii albaab furay oo qeysiyay ma ahaba ninka wax sameeyay ma ahaba si saawu yahay ku dhimo waxa rabbi horta geysatay hada yaqaan oo garan kartaa dareemi kartaa ishtani والسبع الموبقات markuu nabi عليه الصلاه والسلام marday riyadu dambigaas leedahay in sanooc baa ku jiraa inagu ma soo tiro koobi karo qaybta dambe soo gudbay isku soo gabagabeynaya qaybo badan oo ribadaas kamida saa looga cabaadee looga calacalay waan dhex jiifnaa qaybaha nolosheena kamidkan ku jirnaay maxay tahay qaybta koobaadi credit card mastercard visa card dhammaantood ribo wey ninka haystay ninkan haysano mujarad aad yeelato oo aad saxiixdo malcuun baad ribadii ku jira sabab waxa laga yaabaa in la yaabtan maxay ku noqotay xeerka credit card-da caalamiga caalamka waxa weeye waxaad saxiixday inaad xaq u leedahay inaad ku qaadato alaabtaas laakiin haday xilliga kula dhaafto aad diyaar u tahay ribada bixiso yaa ku ogolaaday qofka muslimka looma ogola inuu niyoodo ama uu ogolaado mustaqbalka dambi iyo macsiyo ribo inuu sameeyo maalinta aad saxiixayso kaarka credit card-ka visa card-ka iyo master card-ka inaad qaadataay ribaad ogolaatay oo ribaad saxiixday waayo waxaad saxiixday waqtigii aad kula dhaaftay inaad diyaar u tahay ribo inaad bixiso laba waxaa shabaha termeynka alaabta aan ku gadano gaar ahaan galbeedka TV buu ku soo gatay termeyn qofka wadankiina waxa lagu yiraahdaa ma aqaan termeynka sliyada oo miya tartiib inaad u bixiso
alaabtii gurigii iyo fadhigii iyo kusoo gadatay sariirtii iyo kabadkii iyo tvgii iyo telefishinkii baad kusoo gadatay, gaari baad kusoo gadatay, wax alaab kale aad kusoo gadatay, combyutaraad kusoo gadatay, isku wada dar. qadiyaddu waa kala laba yaa lasu qasi. dad badan baa waxay moodaan galbeedka marka la joogo, markii caalamka islaamiga laga hadlayo beecu taqsiidka, beeca gabalgabal loo bixiyo iyo kan galbeedku inay isku mid yihiin. isku mid maaha, qadiyad bay ku kala duwan yihiin. kana ribo ka dhigtay, kana culamada qaarkood kanta inay baneeyaan systemka. qadiyad muhim inaad ogaataan fi fiqh shariica waxaa weeye almacruufu curfan kalmashruuti shartan. wixii curfiga iyo dhaqanka la yaqaano inay saan noqonayso wuxuu lamid yahay shardi intii la galay lagu heshiiyey. curfiga dhaqanka wadankan ee xaq lagugu leeyahay maxkamad in lagu geeyo, xoogna lagaga qado waxaa weeye xilligii haddaad kala daahdo inaad lacag ku dul fuusho. telefishin baad gadatay, intaa inaad ku bixiso sanad bay ahayd, waad la daahday, lacag ma kufuuli mise kufuuli mayso? waa kufuulaysaa. xataa contractga haddayna ku jirin aad saxeeday, xeerkii dhaqankaasaas. haddii berri lagugu dacweeyena aniga ma ogeyn lagaa yeeri maayo, dulfuur buu saar waa saari. haddaba contractgaad saxeexday baa macnihiisu wuxuu yahay waxaan diyaar u ahoon ogolahay intaa inaan ku bixiyo, hadda ila dhaaftana aan ribo bixiyo. waa contractgii credit cardka oo kaleeto. ha u qaadanina ka dunida muslimka ka jiray culamada qaarkood fatwoodeen waa banaan yahay. waxaa weeye waa tarmayn. haddaad waktigii kala daahdo daba socod iyo wax iyagiina si iyo maahane aan dulsaar kugu fuulayni wey. haddaad sanad ku bixin lahayd oo sanadkii la soo daahdo in lagu dacwaysto maxkamad lagu geeyo maahane inta aad ku heshiiseen hore u dhaafi mayso, shilin ku darman maayo. kaway ka culamada qaar ka hadleen waa banaan yahay. laakiin kan ama shardiga contractga soomaalida gaar ahaan ma aqriyaan waraaqaha contract ay saxiixayaan, gadaashoo dhabarkooda waxa ku qoran ma aqriyaan. hadday dhacdo xataa dhabarka inayna kaga qorayn arrinta shardigaasi, waa curfiga dhaqanka la yahay almacruufu curfan kan mashruutu shartana wey. haddaba alaabta sidaas westernka iyo galbeedka xeerarkeedu sidaa yihiin iyo curfigeedu saa yahay, alaabta saa lagu gadanayo, saxiixaagu wuxuu ka dhigan yahay inaad ogolaato haddaad sidan yeeli weydo inaad ribo bixiso. qadiyadii creditka way lafteeda waa qayb labaad oo ribadii kamida oon ku dhacay samayna wey. qaybahan samayna waxaa kamid a bangiyada lacagaha la dhigto. bangiyada intaan aqaana accountiyadooda laba qaybood wey. account xiran oodan inta muddadaa leeg waxba ka bixin karin, ma aqaana waddankiina hadduu leeyahay, iyo accountka furan ee caadiga. sideedaba account bangi laga furtaay banaanaanshaheedu waa xaddu daruura, maadaama noloshii uusan qofkii ka maarmaynin iyo xaddu daruura loogu ogolaaday. accountnada furani, accountnada xirani intaan ka aqaano wadamadan arkay galbeedka iyo westernka, qofka ha ii xirnaatalihi wuxuu leeyahay percentage renti oo ka badan ama boqolkiiba intaa ka badan ka accountkiisu furan yahay tuu lahaa. saamata waddankiina saa darteed dadku si ay lacagtii ugu yeeratay lacagtii u korodho, dad badan baa iska xira sanad oo inuu wax ku daran maahane ama 2 sano aan wax kala bixi karin. markaasaa waxaa u fuulay percentage renti ama ribo oo ka badan kii kuwa kala fuulay. saas darteed lacagtaa dulfuusha ee lacagtaada kugu soo raacday ama adu ujeedadaadu ha noqoto renti lagu saaro ama yaanay noqonin oo lacag baa kuu dhigmi weydo inaad iska xadidto iska afqabataa rabtay, lacagtaa dulsaartee la socota ribo wey. haddaad cuntana dirhamu riban yaakuluhu rajulu huwa yaclam ashaddu cinda allahi min 36 zaniya wey. akoonkaaga caadiga ah hadday wax yar lacag ku hakato waxbaa la soo diraa santiyo iyo wax yar ha noqdaan. santiyada waxa yar soo raacay haddaadan iska gaarinna ha moodin, ha yaraysanin santiyada. hal karoon bay kugu gaareen 6 iyo 30 sano ka badan wey. hal karoon hadday kugu gaaraan iska qabo marka maalinkii warqadda u horeysa soo dhacday ku qoran tahay intaas renti iska saar isdhaafi. haddayna bangiyadu kaa yeelin inaadan qaadanin waa kugu jirtaa way lacagtaada ku dhex jirtaa, iska bixi. haddii kalood fudaysato hal karoon iyo wax macno male aad tiraahdo ashaddu cinda allahi min 36 zaniyad ku jirta halkii karoon. wadaad khatarta ay leedahay u fiirsa. laakiin soomaali waxaa lagu yaqaanaa wax sahashi wax macno male naga daa. haddaad tiraahdo warbaahan dambigeeda iska daana wadaadayahu mutashadidiin baa tiimu ku leey. dadkii wax walbaa nagu soo adkayseen, annaga maana adkayn. naftaada lagu naxayaa lagu leeyahay war waxan nusuustii nabigu waxay tiri 6 iyo 30 sano ka badan dambigeedii hal karoon iyo 10 karoon wax ku tari maayaan isdhaaf. lacnad iyo aakhira iyo cadaab ku mudan.